ururka samafalka tawfiiq ee ka howlgala goboladan awdal iyo salal waxa uu maanta deeq lacageed gaarsiiyay maamulka cusbitaalka dhimirka ee Boorama waxaana deeqdan soo diray ururkan wakiil uu ka ahaa hablaha jaaliyada goboladan awdal iyo salal ka soo jeeda ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana deeqdan lagu wareejiyay maamulka cusbitaalka dhimirka ee Boorama madashii deeqdan lagu wareejinayo waxa ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta ururka tawfiiq iyo mas'uuliyiinta cusbitaalka guud ee Boorama iyo qaybta dhimirka ee Boorama waxaana hadaladooda kamid ahaa halkan joognaa maanta General Hospital oo Boorama waxaana la joogaa agaasimiye dhakhtarka iyo maamulkii kale ee dhakhtarka waxaan la soo gaadhay lacag ka timid wadanka Canada gaar ahaan magaalada Toronto lacagta waxa soo diray hablo muxsiniina oo u dhashay gobolkan Awdal Salal iyo Gabiley lacagtaas waxay dhan tahay $6506 waxaan ku wareejinaynaa agaasimaha dhakhtarka waxaanay hablahaasi u soo dhiibteen lacagta dhakhtarka dhimirka Boorama oo imika aan hor joogno waxaan leenahay agaasimaha naga gudoon lacagtii siday u dhameyd basra waa ka gudoomay iyo ururkayga tawfiiqba inta ay noo soo gaarsiiyeen waan uga mahadcelinaynaa ilaahayna jari xasaar ka siiyo waxaan leeyahay mataqaana iyadana aan mahadcelinaynaa gabdhaha muxsiniinta ee ku soo deeqay lacagta ee ugu soo deeqay walaalahooda mataqaana dhimirka meeshooda in loogu hagaajiyo ama waxtar loogu sameeyo iyagana waxaan leenahay ajar iyo xasaanka miisaanka aakhira alla ilaahay ugu daro waxyaabo badan baa isbedelay feeshay wax soo dhacay telefoonkiisa baa soo dhacay waan u qurxinay oo kii wiilkii baan galgalinay dabadeedna waxyaabo badan technically ka soo baxay baa jira oo wiilka dib u baahan in dib handana mataqaana rehabilitation degdeg badan oo damba la sameeyo kulay wax badan bay tari doontaa si kastaba ahaatee deeqdan waxay ku soo beegmaysaa xilli bisha Ramadaan la gudagalay isla markaana ay jiraan baahiyo fara badan oo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkan haysata kuwaasoo xilligan sugaya walaalaha islaamka ee caalamka ku kala firirsan Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.